مبارك مبروك يا أحبابي كل عام وأنتم بخير عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل عام وأنتم بخير. kusoo dhawaada falanqayn iyo farkumuuqid yar oo ku saabsan filinka filo qaybtiisa 77 saddex qayb ayaan ka soo qaadan doonaa. qaybtan waa qaybta hore. runtii maadaama filinkan filo uu yahay filin aad ay bulshada Soomaaliyeed u xiiseyso oo xataa marka qaarkood lagu daawado si qoys ahaan ah lagu daawado, runtii qaybtan hadda aan ka hadlayo oo ah Naif iyo gabadha ay habartiis dhashay oo guriga isku cislaystay, gabadhan ay soo jeedisay in turub la ciyaaro ayuu sir bay ka wadataa oo camera ayay xiratay. sidoo kale waxay tiri fooro waa qof ujeeddo leh, waxay tiri haddii qofkii laga badiyo waxa waaye waxba la sameynayaa. marka kaamaraday ka duubatay 2 mar ayay badisay, waxay tiri gacnaha ay qabo wax ku jecelahay xaaskayga tahay. marka hore uu ka dhaga adkeeday laakiin marka dambe uu ogolaaday. markii dambe isaga guush ku guuleystay turkii la ciyaarayay ayaa wax ay macnaha u cusday asigii oo yiri qolka gal, way diiday galu yiri, way ogolaatay, waa ka dabagaliyay. marka runtii falkaas isaga ah in wax dhicin waa loo jeedaa, laakiin falkaas oo actionka uu ka dabagalay uri ay galayso iyadoo ay soo baxday iyo isagoo haddana nabso shaatiga gashanayo. marka meesha fal baa dhacay waaye. marka falka dhacay dhinacyo badan ayaa laga fiiri karaa. horta Naif waa nin xas leh, waxa uu sameeyay waa qalad. taas waa jid in la yiraaho macnaha filinka in waji kale loo bedelo oo markii ay ayada laga raayo ay tiraa ma ku raacay oo isaga jiijito ay ka cararto. haddii marka dhabarka markuu soo qabto macnaha ah haddii diriceed gadaal uu ka jeexan yahay asaa gardarnaa, base inay maadaama ay ka duubtay ay tiraaho filinkan aan ka hayaa waxba ugu masayn kartid rakaata waayo. horta runtii weji kale in loo bedelo ayay ku fiicneed runaantii wejigan hadda lagu soo bandhigay. taasi waa midda kow aan falaqaynta ku darayo oo jeclahay in la saxo maadaama filinkan uu yahay filin bulsho badan ay ku xiran tahay waxyaalaha qaarkoodna laga celiyo.